waa maxay ujeedada dadka loogu yeeray diinta islaamka? Ujeedooyinka dadka loogu yeeray way fara badan yihiin. Waxaa ka mid ah in dadka laga saaro mugdiga gaalnimada, loo saaro iftiinka islaamka, lagu hanuuniyo wadada xaqa si loogu badbaadiyo carada Alle iyo naartiisa. Saxaabiga lagu magacaabo Ribciyi ibn Abi Caamir Allah ka raali noqdo markii uu saxaabiga jaliilka ah Sacd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu u diray hogaamiyey Furus ee Rustum wuxuu weydiiyay maxaa noogu timideen. Wuxuu ugu jawaabay inaan dad ka saaran inay iscaabudaan, una saarno inay rabbigooda caabudaan, inaan dad ka saaran dulmiga diimaha, una saarno cadaaladda islaamka. waxaa ka mid ah sidoo kale ujeedooyinka dacwada in dadka laga saaro dulmiga jahliga loona saaro iftiinka cilmiga, in dadka laga saaro mugdiga macsiyada loona saaro iftiinka daacada, in dadka laga saaro adeecida shaydaanka loona saaro adeecida Alle iyo rasuulkiisa. Alle sareey wuxuu dhahay الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Alle sareey wuxuu dhahay Alle waa mid walow ah una gargaaro khayrkana waafajiya kuwa isaga rumeeyay. Wuxuu ka saarayaa mugdiga gaalnimada iyo jahliga, wuxuuna u saarayaa iftiinka iimaanka iyo cilmiga. waxaa ka mid ah ujeedooyinka dacwada in la helo ummad wanaagsan oo Alle caabuda, dadka bara diinka Alle. Alle sareey wuxuu dhahay لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Alle sareey wuxuu dhahay Alle wuu idin nimeeceeyay markuu idin soo diray rasuul idinku aqrinaya quraanka, idinka daahirinaya shirkiga iyo akhlaaqda xun, idin baraya quraanka iyo sunnada. waxaad ahaydeen intaan la soo didin kuwa baadi cad ku dul sugan. waxaa ka mid ah ujeedooyinka dacwada helida muslim wanaagsan. nabiga wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay waxaan ku dhaaranayaa Alle inuu Ilaah hal qof sababka ku hanuun waxay ka khayr badan tahay in loo siiyo dhammaan wax hanti ah ee adduunyada yaalo. waxaa ka mid ah ujeedooyinka dacwada in xujada lagu oogo dadka Alle ku gaaloobay diiday cibaadadiisa. Alle sareey wuxuu dhahay rusulan mubashiriina wa mundiriina li'allaa yakuuna linnaasi cala Allahi xujatun bacda ar-rusul wa kaana Allahu casiizan xakiimaa. Alle sareey wuxuu dhahay waxaan u soo dirnay ummadda rasuul ugu bishaareynaysa ciddii Alle rumaysa janno, uguna digaysa ciddii Alle beenisa naar. sidaas waxaan u sameynay saysan dadka ugu sugnaan waxay xujaystaan kuna cudur daartaan maalinta qiyaamo. waxaa ka mid ah ujeedooyinka dacwada in dhulka lagu camiro khayr iyo camal wanaagsan. Alle sareey wuxuu dhahay يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Alle sareey wuxuu dhahay kuwa Alle rumeeyo ku camal fala wuxuu Alle idin jideeyay rukuuca una sujuuda salaadiina dhexdeeda kaligii wanaaga sameeya. waxaad mudantihiin haddaad sidaas sameydaan inaad adduun iyo aakhiro ku liibaantaan. waxaa ka mid ah ujeedooyinka dacwada in la iska reebo dhulka macsida Alle in lagu fasaadiyo. dhammaan Alle rususha uu soo diray qoomkooda markay ugu digayeen shirkiga waxay fareen inay dhulka ka daayaan fasaadka iyo xadgudubka, waxayna ka reebeen ummadahooda dhulka in lagu fasaadiyo macsida Alle. midaa waxay dhammaan dadka ka badbaadinaysaa cuquubadu Alle ugu soo dedejin lahaa adduunyada. Alle sareey wuxuu dhahay وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Alle sareey wuxuu dhahay rasuulka sharafta badan oo ma ahan rabbigaaga mid halaagayo magaalooyinka dulmi ay sameeyeen darteeda, ayadoo magaalka dad ku nool ay islaaxinayaan, dadka wanaaga farayaan, xumahana reebayaan. dhulka fasaadin waxaa u ah in lagu dhex sameeyo wuxuu Alle reebay. Allana addoommadiisa wuxuu ku waaniyey inay wanaag ku dhex sameeyaan dhulka dhexdiisa kana daayaan xumaha. Alle sareey wuxuu dhahay
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. alle sareeye wuxuu dhahay alle wuxuu idin farayaa cadaaladda iyo isxaan samaynta iyo in qaraabada wax la siiyo wuxuuna idinka reebayaa xumaha macsiyada iyo gardarrada waxaad mudantihiin inaad waanada qaadataan fartoontaan waxa la idin faray ka hartaan waxa la idinka reebay.